reer Puntland waxa mideeya waxa ay ku noqon karaan ku sii wada joogi karaan dawladnimadoodu ku sii shaqeyn kartaa 8 January 2024 hoolkii baarlamaanka inaan isugu tagno 60 xildhibaan reer walba uu xildhibaankooda soo xusho xildhibaankii reer xaaji waa iga diyaar bahadul bahante maanta xildhibaan ma leh dani dib u deg war waxaan dagaal lama oran karo Soomaaliyeey magac kale aanu bixino ra'iisul wasaare Xamse iyo madaxweynaha muddaxileedkiisa sii dhamaanayo dani oo 24 saac la soo dhaafay hawada isu mariyay waxaan ka taala la oran karin qumbulatu durriya baan anu ku tilmaami karaa waa shiina culay oo milafkii Xamse iyo dani uu soo gaaray oo maanta doonaya raga inuu u garnaqo dad badan oo Soomaaliyeed waxay ugu yiraahdeen warniyo nin oday oo xoogaala tahay oday Soomaaliyeed baa tahay madaxweyne beesha daarood ee baraha bulshada tahay Xamse maxaa lagu haystaa ninka ilaa maalintii la magacaabay ilaa maanta hareeraha laga galay waa la qaylinaya heer waxa la gaaray marxuum kale leeyahay Soomaali waxaan u sheegayaa oo daarood xasuusinaya Xamse waxa lagu haystaa wixii shalay Cali Khaliif lagu haystay farmaajo lagu maagay saacid hurdaayo loogu bixiyay xiirane xilka looga qaaday wax inta ka duwan oo lagu haysto male waa shiina culay oo doonaya xaq inuu ku adamo ka cabsanaya muuqaalkiisa ina si share gareyso bartiisa Facebook follow soo tiraado aragtidaadana commentiga ku cabirto ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed waxa weeye wuxuu u dhaartay inuu u adeego dadkaas Soomaaliyeed raas Kamboni ila raas Asayr sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu nidaamka 4.5 ku metelaa beesha daarood xilgaaru ra'iisul wasaaraha kulleeyo sibuu u tirsanaya oo ninkii siyaasadda maanta ku metelay Soomaalina shaqay ka sugaysaayo waa ra'iisul wasaare qaranka Soomaaliya oo dhan inuu u adeego wuxuu qabtaa laga rabaa Soomaali wali waa aamusan tahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu wado waa la dhacsan tahay xukuumaddiisa dan qaranna waa la wada mahadiyo marag bakatiin laakiin kooxdan hogaaminayo oo ra'iisul oo beesha daarood ka soo jeeda baa ra'iisul wasaare halka u dhaafilaya ilaa oo maanta markuu u dameeyay uu daliil soo istaagay ra'iisul wasaare maaha waa xogaye maxaa marka ra'iisul wasaare loogu taagan yahay subaxa ka ra'iisul wasaare lagu diray maxay ku haystaa taasara waa marka ina ummadda Soomaaliyeed aan ka jaahil saaro dani waa arkaa jira doon dani jagada ra'iisul wasaaraha u muuqata sinaba ugama samri karo kursi daarood leeyahay inay cid kale fariisato wala mareexaan wala ogaadeen wala maxaa ku raahday harti kale wala majeertay kale ama isaga fariisan ama kandadu xiga buu fariisin wixii inta ka soo hara waa marxuum iyo hurdaay wixii inta ka soo hara jagadaasi jaga daarood u qaranta maaha ra'iisul wasaare daarood matala maaha waa xoghay waa sida uu yaqaano iimaan la'aanta dani ilaa iyo hadda wuxuu aaminsan yahay ra'iisul wasaare inaan magacaabinba wuxuu aaminsan yahay Xamse inuu xoghay yahay dani wali wuxuu ka rajo qabaa in ra'iisul wasaare isaga loo magacaabo jagadii oo banaanba u muuqata waa nin iimaanka Allah ka qaaday Siciido waxa leenahay horta iimaanka Allah ku sugo dadka Soomaaliyeed hore ku arkay maanta lagu baray aniguna horay baa kaaga digay Xamse Cabdi Barre waa nin daarooda waa nin ogaadeena waa muwaadin Soomaaliyeed waa mare xaq wuxuu u leeyahay inuu dadka Soomaaliyeed hadii madaxweyne u gartay ama dadku ay bariba madaxweyne u doortaan uu dadka Soomaaliyeed u adeego oo metelo oo mas'uulkoodii noqdo sidaas la mid ah beesha daarood oo uu maanta ka soo jeedo oo uu waliba dadkii baarka sare ka yahay oo quwadii Maxamed Subayr ogaadeen aal kablax bin Jabardi uu ka yahay xaq buuxa oo uu san cidna marti iyo magan uga ahayn buu wuxuu u mudan yahay inuu metelo oo kursiga ugu sareeyo daarood leeyahay hadii Ilaahay u qoro loo calfo loo garto loo magacaabo uu ku fariisto Siciid Cabdullaahi Dani iyo inta la aragtida ee la maca masaajidada ka soo qunadeen ama caruuro gaalka ay jooga
ha u heeseen oo hala hadleen ama ha soo habaartabeen ama roob doon intay u baxaan haddahan waxaan ka soo habaareynaa xamse cabdi bare ama seer baan u soo caytabeen xamse waa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed Soomaali waa qaadatay waa la dhaariyay baarlamaankii waa meel mariyay daaroodna 4.5 buu ku metelaa madaxweynihii daarood ee baraha bulshada ahay oday harti baan ahay ninkii waxa la yiri mataga walaalkiisa u luqluqa dani mataga maanta ka soo baxay ana xaal ka bixinaya beesha ogaadeen baa ka siinaya Soomaali baa ka siinaya harti waxa kuma metelo daarood kuma metelo maxaa ku yiraahdaay ma jeerto kuma metelo isaga iyo in yar oo arkaa jira doon ah oo iimaanka alla ka qaaday oo aan u duceynayno in iimaanka Ilaahay u soo celiyo buu ku metelaa waxaan halka fariin uga dirayaa beesha Maxamuud Saleebaan waxaan idin leeyahay iyo guud ahaan shacabka reer Puntland war ninka dani ah waxa uu wado waa gunnimo hadii laga dhiidhii waayo oo qad oran waayo war dadka magac xumo uga tagaya war godab buu meel inoo dhigaya aanan qaali karin tii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shalay ka galay baa ilaa ay hadda aan laga garaabin oo gole maxaa ku raadayay aan gariigi laga noqon maanta mid kale oo waliba tii ka sukaysa oo guri kabla laxtaala ma qaadi karno dadka aan aragtida dheer lahayn oo maaragtay iska yaabayso habba dhinac la isaga kacayo oo maaragtay reer Puntland ama majeerteenka kale ah ama warsangale ama dhulbahante ah waxaan leeyahay Saciid Cabdullaahi Dani in mashruuc oo Cali Saleebaan oo dawladda wasiir dawlad ka ah ama xange oo maxaa ku raadayay wasiir dawlad oo biciidiyahan ka ah hadii ra'iisul wasaare loo magacaabi lahaana sidaas u qeyn lahaa kama samreen xooghayu ku tilmaami lahaa hadii nin warsangale loo magacaabi lahaana saasu waxa weeye tafta uga lulan lahaa halka uma mareen hadii nin dhulbahante ah loo magacaabi lahaana sidii Cali Khaliif buu dawladda baqaadici lahaa war hadii xamse bal maanta la diiday war Cali Khaliif galeen maxaa shalay lagu diiday war yaa ka aqoon badnaa war iska dhaafso daaroode qofka Soomaaliyeed oo Cali Khaliif la aqoon tahay aniga ii sheega maxaa shalay lagu diiday qofka dhulbahante ah oo maanta dani isaga sacabatumaya su'aasha inuu isweydiiyo baa la rabaa waxaan idin sheegayaa daarood dantiina waxay ku jirtaa inaad difaacdaan xamse sababtoo ah ayihiina ku xiran xamse waxa lagu haysto shalayna inaga qaarina kamid ah leenu ku haystay barina ala lagu qabsan doona waxa la rabaa in daarood walaala ah isjecel dadka Soomaaliyeed waxa la qaybsan kara iyaguna wax isu ogol oo ismaamulaya Soomaalina wuxuu ogol oo maalintooda ogol in la maamulo illa hela la doonaya waxaan u sheegayaa Saciid Cabdullaahi Dani iyo inta la maca ee la maskaxda ah waxaan u sheegayaa shalay haday idin shaqaysay ina daarood ka dhigataan qiiq isku qarisaan oo marna inta durbaan kablaxnimo ugaadeen u tuntaan ama reexaan cilla ku dhigtaan marna dhulbahante inta durbaan hartinimo u tuntaan aad ogaadeen ku fogeysaan ama marna inta warsangeli kaar baxma jeerteennimo inta ula soo baxdaan aad dhulbahante cilla ku tuurtaan waxaan idin sheegayaa hadee shalay ahayd hawiye turbaray maanta waxaan idin leeyahay daarood siyaasadii isku fahan that era is over waaga waa dhamaaday waxa la gaaray xilli daarood u xisaabtamayo xilli qof kasta oo daarooda uu xaq u leeyahay mansabka daarood uu leeyahay in maalinta uu ku metelo cidii maalinta Ilaahay u garto loo magacaabo ay waajib muqaddas ah tahay in lagu la shaqeeyo xamse cabdi bare taas baan ku taageersanahay ku garab taaganahay ummadii Soomaaliyeed oo aan ka soo caban dadkii Soomaaliyeed oo taagan ra'iisul wasaaraha fursad hal siiyo dadkii Soomaaliyeed oo u sacabatumaya oo ra'iisul wasaare ku haya oo wax qabadkiisa la dhacsan in koox yar oo daarooda oo arkaa jira doona oo dani oo maskax u yahay ay ku soo kala qabato oo tiraahdo waa xogay naba metelo waxaan leenahay raali ahaada taas waa idinka diidnay shalay hadday idin shaqaysay oo rag aan ogahay kuraasta ku hooseejiseen maanta idin shaqayn mayso that era is over waa ku celinaya waqtigaasi waa dhamaaday waxaan u baahanahay daarood mid ah
walaala ismateli kara kaas baan doonaynaa xilligiisii baa la joogaa siman nin walaalkii maxaa la yiri nin walaalkii deeriye maxay ahayd ilaahay darajo siin waa nin walaalkii isagu waxa weeye geeska gelinaya meel ma gaaro dani baa tusaale taa inoo ku filan maraxa uu maanta hayo oo uu meelaha uga soo cabanayo uga soo calaacalanayana waa caro ka dhalatay doorashadii iyo sidii loogu siray waxaan rabnaa daarood mida walaalaha ismatalaya Soomaalina sidaa wax kula qaybsanaya waxaan leenahay marka xamse waa laga gardareeyay Saciid Cabdullaahi Dani dadka reer Puntland waa inay iska qabtaan waa in runta loo sheego dimuqraadiyadda tabeenta ee uu doonayo inuu maxaa ku yiraahdaayay kuraasta ku boobo inuu muddada ku korsado waa mid uu doonayo inuu garow ku gubo annaga leh fidmo weeye garow ku gubaya Puntland buu ku baabi'inayaa waa ku burburinayaa inta goortahay halaga qabto Saciid Cabdullaahi Dani waa masiibooyinka laga cudbilaysto habeen kasta madaxtooyada qabiilo kula shiraa waxyaabaha ugu sheekeeyo waxaa kamida Ciise Maxamuud tarahoodii baan dhaafinayaa aanan jamba ka argoosanaya taas reer Puntland ma dhaqo dadka reer Puntland ma midayso dadka reer Puntland waxa mideeya waxa ay ku noqon karaan ku sii wada joogi karaan dawladnimadoodu ku sii shaqeyn kartaa 8 January 2024 hoolkii baarlamaanka inaan isugu tagno 60 ka xildhibaan reer walba uu xildhibaankooda soo xusho xildhibaankii reer xaaji waa iga diyaar bahadul bahante maanta xildhibaan ma leh dani dib u deg waxa weeye isxul xargi aha inuu leeyahay umaleynaya male hadda fadhiyaan marka daniyow hadii bahadul bahante aysan maanta xildhibaan lahayn ummadaha ku dirin waxba dimuqraadiyad ku helmaysid dib u deg baan ku leeyahay waa shiino culay oo idin leh xamse waa joogaya waa la shaqeynaya waa la shaqeynayna daarood waa ku qanacsan yahay waa garab taagan yahay Soomaali weynna waa la dhacsan tahay arkaa jira doon ummadu wada aragtay dani meel cilla ah wax ku soo dhacday nin walaalkii maxay ahayd war waa maahdi ay qaldantahay nin walaaltii dugsada yahay ilaa darajo si waaye marka ma sha Allah saasaan idin leenahay xamse ra'iisul wasaaraheena fi qulubuna wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh